Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khiyaarteena aad jecelnahay meel walbo joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaan ku soo dhawaada wararka caalamka oo dhan intii aan ka gaarno aan ku bilowno markaana ugu horreysiino dad badan ayaa waxa ay soo xasuusanayaan markii ay arkaan gabdho ilaala ah ama staff ah oo waardiyeynayo hogaamiye ama nin madax ah hogaamiyihii hore ee wadanka Liibiya Muammar Gaddafi kaas oo lagu xasuusto in ay ilaaladiisa qaaska ay yihiin gabdho aad u tababaran aadna u tayo sareeyo naftiisana uu ku aamini jiray gudaha wadanka Liibiya ama meel ka baxsanba hase yeeshee arrintaas arrin la mid ah ayaa maanta waxay baraha bulshada iyo dhammaan warbaahinta Kenya qabsatay gabar lagu magacaabo Anab Subow Gure oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa markii la arkay gabadhaas oo istaafkeeda qaaska ah ay ku soo bandhigtay laba gabdhood oo qoryo wato oo la taagan garbaheeda taagan haddaba Anab Subow Gure oo ah xildhibaanad ka tirsan dalka Kenya ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay hadda ka hor baahisay sawirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo calanka Soomaaliya hase yeeshee Zainab ayaa warkaasi beenisay maantana waxaa la arkayay Zainab oo sawirkaas ay labada dumarka ah geesaha ka taagan qoryahana ay wataan ay soo bandhigtay Zainab oo la wareysanay ayaana waxa ay sheegtay in gabdhaha ay qaban karaan hawl ka fiican hawsha ay ragga qabtaan haddaba Zainab iyo labada gabdhood ee staafka u ah ayaa waxaa la arkayay meel halis ah oo halisteedu badan tahay oo Kenya ka mid ah ayadoo taagan kadibna sawirkaas looga qaaday waa cajiib in gabar Soomaaliyeed ay ka dhigato ilaaladeeda qaaska ah gabdha kale waa arrin runtii aan dhihi karo waa arrin u baahan in la gobaabiyo wararka kale waxaa kamid ah wadanka Ciraaq ayaa waxaa ka dhacay isbitaal ku yaalo oo coronavirus-ka dab aad u weyn halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 92 qof halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaasi wadanka Ciraaq ayaa waxa uu la daalaa dhacayay tobannaankii sano ee ugu dambeysay dhibaatooyin dagaal mid musuqmaasuq iyo waliba mid cunaqabatayn ah wadankaas Ciraaq ayaa waxaa ku soo duulay wadanka Mareykanka oo burburiyay dhammaan wadankii iyo gaashaanbuurta NATO ayadoona weli ay faragelimihii ka socdaan isku rabaacsanayaan dagaallo iyo qaraxyo iyo weerarro iyo hubiyalna ay iskula weerarsadaan dowladda Iran oo ku lug leh iyo Shiici meeshaasi ku badan iyo waliba Sunniga dhibaatada maanta ka dhacday wadanka Ciraaq oo ah musiibo ayaa waxa ay tooska ku sii ifinaysaa dowladda dhacayso ee Ciraaq ayadoona haddaba waxa uu dabka ka kacay magaalada Nasiriya ee koonfurta Ciraaq saraakiisha caafimaadka ayaana waxa ay cadeeyeen in ay ku dhinteen ilaa 92 qofood halka ay ku dhaawacmeen ama uu dhaawac gaarayo ilaa iyo haatan 100 qof ka badan waa sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka wararka kale caalamka waxaa kamid ah in wadanka Itoobiya ay ka soo baxayso warar naxdin ama murugale kadib markii intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay dowladda Itoobiya iyo falaagadii Tigreega ay dhacday arrin yaab leh kadib markii uu nin sheegay in intii la kala qaxayay ay howdkana ku sii jireen ay naagtiisa umushay kadibna ay dhashay 2 canug oo mataana ah labadii canug ee mataanaha ahaa markii ay dhashay waxa yar kadib waxa dhimatay ayuu yiri islaantayda ninkaas oo la hadlayay warbaahinta islaantii markii iga dhimatay wax aan suubiye ayaan garan waayay ayuu yiri ninkaasi kadibna waxaan suubiyay ayuu yiri salad ayaan waxaan ku riday labadii gabdhood oo mataanaha ahaa gabdha in ay yihiin ayaa la sheegay labada canug ee halkaasi ku dhashay
kadibna wuxuu yidhi salladii ayaan ku ritay, waxaa kaloo garab socday ayuu yidhi wiil yar oo 5 jir ah oo aniga dhalay iyo wiil 14 jir ah oo seedigay ah ayuu yidhi, asaga oona usii socday markii dambe ka tallaabay xuduudda Itoobiya galayna waddanka Suudaan oo ay daris yihiin. Kadib markii uu Suudaan galayna waxaa halkaasi uu iska dhiibay xaraq qaxooti, ayadoona naag Maraykana oo qolada caafimaadka qaabilsan ah ay halkaasi ku saacidayso ninkaas iyo labadiisii canug ee mataanaha ahaa. Ayadoo intii uu socday dagaalkii lagula jiray Tigreega ay Itoobiya xaalad bini'aadanimo midii ugu xumayd camal ay geli gaartay, ayadoo ilaa iyo haatan xaaladda Itoobiya aysan degin oo ay Tigreegina carcartooda la soo laabteen, ayadoo la fahamsan yahay in reer galbeedka oo aad u taageerayo Tigreega kana soo horjeedo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay Itoobiya xaaladeeda dhinac kale u rogayso. Maanta iyo shalay waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya Tigreega iyo qowmiyadda Axmaarada. Qowmiyadda Axmaarada iyo Tigreega ayaa waxaa ka dhexeyso cadaawad aad u weyn oo soo jireen ah, ayadoona hadda Axmaarada ay wadnaha farta kaga hayso soo laabashada Tigreega iyo awoodda ama gacanta sare ee la siiyey, ayadoona dowladaha qaramada ama hay'adaha amniga caalamka ay ilaa iyo haatan cadaadiska ay saarayaan xukuumadda Itoobiya iyo taageeraha iyo qolooyinka taageersan. Waxaa la ogyahay Tigreega in ay hadda damacsan tahay in ay kaga aarsato qowmiyad, ayadoona jugtii ugu horeysaba ku bilowday qowmiyadda Axmaarada oo la sheegayo in ay maanta dad aad u badan oo Axmaara ah ay xasuuqeen ciidamada Tigreega, ayadoona madaxweynihii gobolka Tigreega uuna ku jeejeesay oo uu karbaashay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya. Maxaa haddaba sababay in jabhad laga saaray waddanka in ay dib u soo laabato ayadoo wax dagaal lala gelin, haddana ay inta badan warbaahinta iyo falcelin waxyaabo anshax darro, waxyaabo oo aanan dowladnimo u fiicnayn ay u suubinayaan. Halkay ka keentay awooddaas Tigreega? Waxaa la dhihi karaa waxay awooddaas ka keentay gacanta ay ka helayso ama in dowladdii iyo qowmiyadihii kale oo dhan ay gacan dugaadinayaan dowladaha reer galbeedka. Maxaa yeelay dowladaha reer galbeedka waxay cilaaqaad aad u weyn ay la lahaayeen xukuumaddii hore ee waddanka ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa Mila Zenawi, taas oo la ogyahay in ay awaamirta reer galbeedka iyo awaamirtii Mila Zenawi ay iska ag dhawaayeen, xulafo goonina ay lahaayeen. Halka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed markii uu la wareegay talada waddanka sanadihii ugu dambeeyay ee ay dagaalada Tigreega ay galgalayeen, in uu cilaaqaadka inuu u jaro uu isku dayay reer galbeedka, asigoona dib u heshiisiin diblomaasiyad la yeelanayay Ruushka iyo China oo kaleeto. Taas ayaana waxay keentay in ay soo dedejiso reer galbeedka in ay waqti horeba cadaadiska saaraan Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ee Abiy Ahmed, ayagoona ku adkeysanayo in qowmiyadda Tigreega xubinnimadeedii iyo taliskii dalka ay dib ugu soo laabato, waana mid ay marnaba u cuntami doonin Axmaarada oo cadaawad hore ayadoo ka dhexeyso, haddana dagaalkii hadda lala galay Tigreega ee looga saaray Maqalla kadib in ay ka cabanayeen in la gumaaday dadkii Tigreega ahaa ee dagaalka lagu qabtay iyo intii uu dagaalka socday. Hase yeeshee dhinaca kale Eritrea ayaa ayadana ah dowladda kale ee aanan ku faraxsanayn ama ku qanacsanayn sida ay hadda wax u socdaan, oo ah in ay soo laabato Tigreega oyna xukunka waddanka mar kale la wareegaan, ayadoo haddii ay taasi dhacdana la dhihi doono waddankan Axmaaro miyaa deganaan jirtay. Haddeertaana waxaa la sheegayaa in ay Oromada ay meel cidla ka taagan tahay, Axmaarada iyo Itoobiya inteeda kaleeto, maadaama aysan mar walba horta Oromada aysan faa'iido ku qabinba. Dowladda Abiy Ahmedna faa'iido kuma qabto, tii ka horeysayna faa'iido maysan u haynin oo wax faa'iido ah ma uu soo kordhin jirin. Maxaa yeelay ayadoo ah qowmiyadda ugu badan Itoobiya, haddana caasimadda isaga haysto, faa'iidada ugu weyn ee ay ka hesho dagaaladan ayaa waxay tahay in korkeeda la isku dagaalo, in
iyo waxyaabo lamid ah. Aan ku bilowna